kordhoyay waqtigii la doortay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa waxa cabasho weyn ka soo yeedhisay gaadiidleyda magaalada caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kuwaasoo ka cabanaya wadaxumada ka jirta magaalada gaadiidleydan oo mas'uuliyiinta dawladda hoose ku eeday inay dayacaan shaqadii loo doortay waa siday hadalka u dhigeen waxaana hadaladoodii ka mid ahaa magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamed waxaan ka hadlaynaa wadooyinka googo'an magaalada aad noo dhibay runaantii anagu haddii aan taxi lahayn waxaan ku caawinaynaa wadooyinka googo'an Hargeysa wax waddo laga hagaajiyo ma jirto cashuur waana laga qaadaa wax waddo la hagaajiyo ma jirto iyo wadooyinka jaamka ee xirmaya saacad markay gaadho 12 duhurnimo labadaba waan ka cabanaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Cabdiqani Jaamac leeraa waxaan ahay iskaashtada Millibas maroodo jeex waxaan aad uga cabanaynaa dawladda hoose oo waajibkii loo doortay aan ka soo bixino halkan waxna laga qaadaa 15 oo cashuura bishii oo baabuurka fadhiya ka fadhiinba buug baalkan lagu jaro juwan markuu soo baxo taasoo waajibkii dawladda hoose aanay gudanin lacagtana ay yoobinayso lacagtana wax lagu qabanayaa aanay jirin caasimadda waa arteen godadkeedii iyo taxaankeedii halkan waa faras magaalada maalin kaliya maayirkoo soo maray oo ama wax naga weydiiyay maana arag ilaa alaanka xogayaa dawladda hoose ninka xitaa wax information meeshan ay ka bixiyaan ama ay kala socdaan dhaqdhaqaaqeeda waruma hayaan qashin baa dhooban itixaan baa dhooban hodheeladaas uskaga ku shabaan waxa loo baahan yahay xitaa qaybtii ay jiito xitaa ma shaqaynayso ee meeshan ay lahayd sidoo kale waxay baaqu direen maayirka caasimadda Hargeysa iyo golihiisa deegaanka shaqadiina waxaan leenahay mas'uuliyiinta waxaan leenahay shaqadiina waa inay garataan wadooyinkii lacagaha ay haysana waa inay soo hagaajisaan wadooyin badan baa jira oo lacagahoodii la hayo dawladda hoose hayso oo wadadayna moogaa ay ka mid tahay oo basasayaasha iyo gaadiidku soo wada dareen lacagta wax wara lagama hayo waxaan leenahay wadooyinka soo hagaajiya muxuu yahay baaqaad u diraysaa in dadkii ku shaqo lahaanba mas'uuliyiinta dawladda hoose inay shaqadii loo idmaday ay waajibkeeda ka gutaan si kasta haatee waxay dadka qaar aaminsan yihiin in dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ka gaabisay shaqadii loo igmay Axmed Dayax Janab magaalada Hargeysa